duubabka dhaqanka ugaasyada malaqyada iyo odayaasha magaalada Muqdisho oo caawa shir jiraa'id ku qabtay guriga Imaam Maxamed Yuusuf ayaa waxa ay ka hadleen banaanbaxyadii iyo dilalkii maanta iyo shalayba ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana dawladda Soomaaliya ay ugu baaqeen in sharciga ay horkeento askarta dilalka u geysatay dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata waxaana ay ka dalbadeen shacabka magaalada Muqdisho odayaasha in ay isdajiyaan iyadoona dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay u dhaxariistaan shacabka Soomaaliyeed waa kan ugaas Maxamuud Cali ugaas oo arrimahaasi ka hadlaya ugu horeyn waxaan u soo jeedinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ula macaamisho u turto sida ugu naxariis badan wadanka dawladda ka ah shacabkana waa shacab masaakiina 30 sano dib ku soo jiray waxaan leenahay marka shacabka awalan ha loo turo oo yaani caqabaadka jira yaan loogu sii dhibaatooyin kale waxa uu weyn dhibaatooyinka shalay loo geysto maanta loo geysto gaar ahaan dadka masaakiinta ee bajaajleyda oo dhibaatooyin badan loo geysto dadkaasi waxay u xamaaran ama u shaqeeyaan dad masaakiina ay soo shaqo tagaan marka maalin kastaba in askarigii amnigooda ilaalin uu diro lama aqbali karo dawladda horta waxaan leenahay la horkeeno sharciga dadka dhibaatooyinkaas geystay waxaan kaloo aragnay maanta magaalada waxa ka dhacday waxyaabo badan fawdo lama aqbali karo waxaa loo baahan yahay qofku si yaani sharci iyo nidaamna inuu u muujiyo dhibaatooyinka jira xaq uu leeyahay laakiin in balaliqa iyo magaalada la qariba lama aqbali karo meesha waxa la rabaa nidaam iyo kala dambeyn dawladda waa la xisaabtama shacabkana anigu hadaan inaan isla xisaabtano la rabaa xuquuqda shacabka in la dhowro shacabku wuxuu leeyahay la dhowro dawladdan ku xisaabtamayna laakiin awalna iyadana waa in la ilaaliyo kala dambeynta iyo nidaamka oo wax aysan fawdo noqon balaliqa maaha mudaharaad balaliqa maaha inaad maartay sheegato yaani waxa ka maqan Imaam Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in uu aad ugu xun yahay dhacdooyinka maanta iyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana uu cambaareynayo waxaana Imaam Maxamed Yuusuf dawladda Soomaaliya ugu baaqay in si degdeg ah ay maxkamadaha u horkeento dadka dilalka u geysta dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata waxaana uu ku baaqay in dhawaan magaalada Muqdisho ay ku qaban doonaan shir weyn lagaga hadlaya arrimaha gobolka Banaadir iyo dhibaatooyinka magaalada Muqdisho ku soo noqnoqday waxaana dawladda Soomaaliya uu ka dalbaday in shacabka dhibaataysan ay u dhimriso dawladda waxaan leenahay oo faraynaa dadka masaakiinta oo ku dhintay oo kamid yahay ninkii mootada watay si degdeg ah cid dishay inay maxkamad u soo taagto waxaana leenahay beelaha isla degan kulligood oo dhan Muqdisho oo dhibaatada wada hayso maalmaha soo socda waxaan isugu imaan doonaa shir weyn oo hadii la yiraahdo dhibaatadayna uga hadalno dawladdana kula hadalno marka dawladda hadda waxaan leenahay wixii dhacay yaan loo noqonin shacabkana waxaan leenahay hal istajiyo mudaharaad waxba tiri maayaan shacabka odayaashooda anaka u hadlayno hadii dhibka jira anaka u sheegayno wixii dhibay dawladda anaka u sheegayno waa aragnaa laakiin orod iyo tuuriyo dhagax iyo waxba kuma soo siyaadayaan Cabdasiis Ibrahim Xamad TV Universal magaalada Muqdisho